السلام عليكم. soo dhawaada akhyaarta waxaan kariyay maanta bariis iyo hilib aan wax marmariyo xagga hoose kaliya ovenka. hadda waxaan sameynayaa hilibkii lamb chop weeyaan. waxaan kala ku daray xawaashadii toon kamsare ayaan isku tumayaa. halkana waxa ii yaala huruud, kana waa paprika, kan kale waxa weeye basbaas, intaasaan isku walaaqayay olive oil iyo caano yogada. waxaan walaaqo hilibkan ku ridayaa, isku walaaqayaa 15 minute talaagada ayuu igu jirayaa. inta talaagada igu jirana waxaan siinayaa basal, baradho, carrot, tamaandho xabuub, intaas sii jarjaranayaa markaasaan ku ridayaa. qudradii baan ku ridayaa. qudraduna igama baahna inaan wax marmariyo because hilibkaa leh. hadda hilibkan ovenka gelinayaa. inta ovenka hilibku igu jirana bariiskii waan sameynayaa. hadda waxaan shiilayaa basashaan hore shiilayaa. basbaasna wuu igu jiraa, 2 midho qorofalena waan ku ritay. basashu markay ku shiilanto barbarooni iyo tamaandhada baan ku darayaa. markuu hadda ku yara qalaysmo tamaandhadii qalaysanto, toontii xawaashkii ayaan ku darayaa. xagga kalena xawaash kale ii yaala iyo huruudi baan ku darayaa. waxaan ku darayaa kale koobkaasoo kala baran oo biyo ah. biyo kale kuma darsanay, intaasun bay bariis ka dhowto aan doonayaa inaan ku daro. karinayaa biyihii bariiska. waxaan ku daray olive oil yar iyo qudradaan ku daray, markaasaan bariiskana ku darayaa. waxaan qasanayaa liin iyo yogurt aan ku darsado bariiska.
bariisku markuu 5 minute buu karaa ama 4 minute meelahaas waan ka qaadayaa markaas suugadii iyo bislaataan doonay aan ku daraya. basal aan shiilay iyo kamsarana waan ku daray siduu dhadhan iyo macaan ugu sameeyo. bariiska waan dhameeyay, bariiska waan soo guray, hilibkana waan soo guray, vegetable-na waan u sameeyay. marka channel-kayga hadda ku cusubtiin share, like, subscribe. dadkii igu soo biiray saaxiibadayna waan salaamayaa, waan u mahadcelinayaa. waad mahadsantihiin. wixii cusub ee aad doonaysaan inaan sameeyana comment-ka igu soo qoraysaa. wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh.